وأنا سلام دمان saaxiibada ku xiran janaalka Bidaaya Show aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno fadlan haddii aad markii ku guuleysaa janaalkeena soo booqanayso waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyin sidoo kale like noo saar laagtu waxay naga saacidaysaa in saaxiibo badan in uu gaaro muuqaalkeena soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono waakee filimka ay ka soo wada muuqdeen jilayaasha kale ah Aamir Khan iyo sidoo kale Shah Rukh Khan هذا وحكي تأثير أيام ربع إن عندنا وذاقي سود هذا صاحب يال أمير خان شاه رخ خان ولا بجلا وسامين وين كلها شركة عنك أفلام تسمى بوليوود مركان كوضع هذا الله وذا جلا وحي وذاقنا مقع رير خان لكن waxaa xusid mudan Aamir Khan markaan eegno jilayaasha magaca Khan wadaaga waxa uu la shaqeeyay Salman Khan iyo sidoo kale Saif Ali Khan dhanka kale Shah Rukh Khan asiguna waxa uu sidoo kale la shaqeeyay Salman Khan iyo Saif Ali Khan laakiin wili labadan jilaa ee kala ah Aamir Khan iyo sidoo kale Shah Rukh Khan film dhammaystiran weligood islama aysan keenin laakiin waxaa xusid mudan saaxiibayaal inay ka soo wada muuqdeen hal film oo ka mid ah aflaamta sagaashameeyada la daawaday markaan ka hadalno filimka ay ka soo wada muuqdeen labadan jilaa waa film lagu magacaabo Behlanasha waxaa la daawaday filimkaasi sanadii 1993 waxaana director ka ahaa in lagu magacaabo Ashutosh Gowrinkar lagu magacaabo waana filimkiisa ugu horeeyay uu director ka noqdo markaan eegno waxaa filimkaasi jilayaalka ama hogaamiyaalkooda ahaa Deepak Tejora actorka lagu magacaabo ama Shankar waxaad u dhaqaano waa jilaagii doorka kabalaadirnimada ku jira filimka caanka ah ee Jota Hewo Sekandarka oo hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Aamir Khan laakiin Soomaalidu waxay dhahaan Aamir Khan baaskiilka muuqaalka ay ka soo wada muuqdeen waxa ku weeliyay ama aan dhahay muuqaalka ay ka soo wada muuqdeen Aamir Khan iyo SRK ama Shah Rukh Khan sidoo kale waxa ku weeliyeen jilayaal ay ka mid yahay ninka lagu magacaabo Rahul Roy oo lagu xasuusto filimkii Aashiq iyo sidoo kale ninka caanka ah Sodiq Bedi oo asigana ka soo muuqday filimka caanka ah Army ama Shah Rukh Khan shanta actor sidoo kale dadyo kale ee filimkaas ka soo muuqday waxa kamid ah muuqaalkaas yar ka soo muuqday atrishada caanka ah Joy Jalwa haddaba muuqaalka ay ka soo wada muuqdeen filimkaasi waxa uu dhacayaa sida tan ama sida hadda idin muuqan doono saaxiibayaal अपना नाम रोशन करना तुमने तो चमत्कार कर दिया जेंटलमैन मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया क्या बात है लेकिन जो जीता वही सिकंदर muuqaalkaasi hadda aad daawanayseen ay ka soo wada muuqdeen sida hore kuugu sheegan waxa ku weeliyay jilayaal ay kamid yihiin ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan iyo sidoo kale Sodiq Bedi iyo Rahul Roy saaxiibayaal haddaba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal xogta yareed aan kaga hadlayna waa kee filimka ay ka soo wada muuqdeen jilayaasha kale ah Shah Rukh Khan iyo Aamir Khan fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar haddii aad janaalka cusub tahana subscribe inoo saar waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena